حيدادان نبى شري حق وينا وضد كان له شراء مركا واحد يستوي الديل شري وحلا يدور نكان سينو سجاق بنا وحلا يدينك كان حق يسوع والصلح خير بين هيري والصلح خير صلح لما أنت صلحي شرعي وافق سنة وخير بين هيري سبحانه وتعالى هشيس إن له هشيو ودتك يسعلوا الحاد أو السور ميده أو ولا لوبه أو له هشيا وخير بو نبو أي قرآن كنت الماما يا رب سبحانه وتعالى آدنها ما تنو الله تجاربتنا لولد waxay bartay fikirka qaanuniga ee caalamiga ee maanta inuu u janjeero naxwa sulh wal mufaawadat inuu bini aadamku heshiiyo oo gorgortamo oo aanu colaad iyo xoog iyo ismuquunin ku xallilin dhibaatooyinka dhexdiisa dhacda walidaalka maanta duwalka dunida jira waxay leeyihiin xafiisyo u furan inay ummadda heshiisiyaan reeraha isqabta cidda muranta cidda waa consulting waa dad loogu talagalay inay dadka heshiisiyaan ciddaysa xafiis bay tagaysaa waxaanay u tagaysaa xafiiskani mediation ku yaqaana sida dadka loo dhaxgalo farsamada dad yaqaana weeyaan marka wuxuu isku kiindayaa inuu isu keeno hatta maxaakiimta waaweyn ee dunida waxa isku dayda qofka intaan xukunka la ridin oo aan garnaq iyo xukum la gaadhin in dadka musaalaxa laga raadiyo oo loo iradooda la isu diro la yiraahdo bal ina musaalaxa samayn kartaan dib u noqda waana masaladii Umar ibn al-Khattab laha radiyallahu anhu wa arda athar baa laga sheegaa uu leeyahay radd al-khusuma hatta yastalihu fa in fasl al-qada' yurithu baynahum ad-dagha'i Umar ibn al-Khattab waxa laga sheegay inuu yiri qadaadu wuxuu leeyahay dadka is haya bal dib u celiya intay ka heshiinayaan waayo waxaaba laga yaabaa xukunka qaadiga iyo maxkamaddu inaanu dadka laabtooda maydhin walow xuquuqda uu rido yani waxay yidhaahdaan culimmadu alqadaa'u raddu lxuquuq buu sameeyaa sulxiguna waxay yidhaahdaan raddu lquluub buu sameeyaa qadaagu xuquuqdu muu kala gooyaa laakiin waxay leeyihiin heshiisiinta iyo sulxiga iyo dhexdhexaadintu quluubta dadkay dib u walaalaysaa idan ayuha alaxiba khilaafka iyo muranku waa xanuun waxa laga dhaxlaana uu yahay dacfi iyo liidasho iyo tamar darro sulxiguna waa dawo waxa laga dhaxlaana uu yahay naxariis iyo quwo heshiisiintu markaa in dadka la heshiisiiyaa umamka dhaqan ahaan iyo taqaalid ahaan dad baa u quma dad baa u kaca dadkooda ahlu caqliga dadkooda cuqaasha dadkooda salaatiinta dadkooda waaya araga waxay ka dhigan yihiin dadkaasi bulshada dhaqankeeda marka loo eego waxay uga dhigan yihiin الدفاع المدني qoladan maxaa la yidhaha dabdamiska marka meel dab ka dhacaba niman baa loo yidhaha dabdamis la yidhahdo markiiba damiya dadkan waayeelka ahi ummadda waxay u yihiin waa dabdamis khilaafaadka iyo muranka iyo isqabsiga iyo isdilka iyo reeraa kala furmaya iyo waxaasoo dhamme waa xaraa'iq bulshada ku huraya hadday bataana bulshadaasi way gubanaysaa bulshadu waa gubanaysaa ugu dambayn dabdamis cidda ka ahi waa waayeelka waa cuqaasha waa salaatiinta waa culamada waa waxgaradka waa dadka heeganka u ah inaanay ummaddu gubanin inaan ummadda dabku wada qabsanin ayuha alaxiba bini aadamku hadduu isqabto siyaabo badan buu isku dayaa inuu xalka u gaadho bini aadamka badh wuxuu isticmaalaa win-win situation waxay yidhaahdaan meel dhexe in la isugu yimaado adna aad guulaysato adna aan guulaysto nin la jebiyey iyo nin jabaytoonaya inaanu jirin in la heshiiyo maa ilwajhiga in dadkao dhan loo ilaaliyo waa sulxigaa keena bini aadamka badhna zero sum game buu isticmaalaa wuxuu isku dayaa inuu awoodda wax ku muquuniyo waxay gaaladu yidhaahdaan qiso kutubtooda hore iyo waxooda ku qoranoo shamshum theory ay yidhaahdaan bay soo sheegaan shamshum theorygu waa qiso khuraafaadkii ahlu kitaabka
yahuudiya waxaasay rumaysnaayeen ka midoo waxay idhaahdaan nin baa jiray xoog weynaa oo dadkan lagu jira ah marka wax kasta wuu dili jiray waxaa la yidhi war ninkan saynu isaga qabannaa waxaa la yidhi ninka kan xooggiisu timuhu kaga jira ee mar uun timaha laga xiiro aduu gabadh iyo waxbaa loo diray farsamo aakhirkii waxa lagu guulaystay bay idhahdeen in madaxa loo xiiro markaa ninkii uu tamar beelay waxay idhahdeen daba yuu inagu soo kicine indhaha laga rido kiniisadda ha lagu xidho tay labada indhood ka tuureen bay kiniisadda ku dhex xidheen isbuuc walbana mar baa timaha laga xiiraa maalinunbaa markii dambe muddo la joogay la ilaabay bay yidhaahdeenoo timihii baa u baxay dabeetana xooggii buu gartay inuu soo helay maalin axadoo dee la isugu yimi meesha ayuu tiirarkii kiniisadda isku qabtay bay yidhaahdeen wixiiba wuu ku dubiyey laakiin hadda isna waa ku dhintay waxba ma faa'iideen waxay yidhaahdaan calaya wa calayk aniga iyo adigaba waa ha la isla dhinto dadka badh baa in la isku madho xalmooda in la isku madho oo hadna dhimo anna aan dhinto khalaas reeruhu ha madhaan dawladuhu ha madhaan cid waliba ha madhato waa caqliga ugu liita kaasina waa caqliga ugu hooseeya ee bini aadamku wax halka u raaco dadku markay isqabtaan saddex xeer mid unbay maraan in cidi xuquuqdeeda ka tanaasusho التنازل عن الحقوق oo waa maxay waa waxa la yidhahdaa cafwiga inay cidi qaadato wixiisi inuu cafiyo inuu ka tanaasulo ma ahee in cid waliba xaqeedoo dhammaystiran doonto oo kaasina wuxuunbuu ku suurto gelayaa qadaaga in la tago in ilaahay kitaabkiisa loogu gar noqo oo ciddii gar le garta la siiyo cidda kalena la yidhaha halkaa ka bax labadaa mid u dhexeeyaa jira markaa xaqoo kaamila inaad hesho iyo xaq oo dhan inaad ka wada daadegto meel u dhaxaysaa jirta waa meesha la yidhahda islaaxu daat ilbayn aw isulx waa compromise waa adna wax ka taganaan wax ka tago labadeennuba aan guulaysanno meel dhexaan isugu nimaadno kii cafwiga taamka ana maaha wax ka midaad cafwiday laakiin xuquuqdii oo dhan kamaad wada tegin kii qadaaga ee lahaa cid walba xaqeedoo kaamil ha heshana maaha waana inta badan bini aadamka ka ugu quruxda badan leh uu isku hayo waayo cafwiga dadka sare unbaa gaadha dad manaasishu taqwa dadka gaadhay ayuunbaa martabaddaa inta badan gaadha haddaba sulxigu fi shariica waa wax kasta oo dadkii ishayey murankooda lagu kor yeelo dadkii dagaalansanaa dagaalkooda lagu joojiyo ciddii xoolo ama dhiig ama wax kastaba ha isku hayaan ama diin waxay doonaan ba ha isku hayaane in islaax iyo wanaag laga dhex raadiyo